trump oo muddo 3 maalmood u qabtay iiraan inay ku ogolaato heshiis haddii kale wuxuu sheegay in maraykanku ay burburin doonaan siduu yiri wax kasta oo ay iiraan haysato haddaba hanjabaadihii cuslaa ayuu dib u bilaabay trump waxaa kale aan idin hayaa wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan oo ka dhoofay islaamabad isagoo u ambabaxay dhanka iyo magaalada moscow haddaba ma la kulmay qoladii maraykanka halkaa joogtay mise lama kulmin warbaan idinkaga hayaa masar oo hub gantaala difaaca u dirtay wadamada khaliijka si ay isaga difaacaan weerarada haddii ay dhacaan iiraan ay ku soo qaadi doonto wadamada khaliijka haddaba wax ma ka celin karaan gantaalaha ay masar geysay qaar ka mid ah dalalka khaliijka israa'iil oo mar kale sheegtay askar in looga dilay maanta koonfurta lubnaan markii ay isku hor yimaadeen iyaga iyo xisbullah haddaba qodobadaas ayaynu barnaamijkeena ku faahfaahinaynaa caawa inta aan ku jirnana wixii warara ee soo kordha waan idinla socodsiin doonaa oo dib u bilaabay hanjabaadihiisii cuslaa iyo handadaadii uu ku hayay iiraan laakiin su-aasha meesha taagan waxay tahay iiraan ma dhagaysanaysaa hanjabaadahaas haddayse hanjabaadaha dhagaysanayso mar hore ayay markaa wuxuu doono u samayn lahayd alle haddaba marka hadda muxuu yidhi soo cusboonaysiiyey caawa wuxuu leeyahay 3 ayaam 3 maalmood u qabtay markii horena isaga le yiri xabad joojinta waa kordhiyay haddana isaga wuxuu leeyahay 3 beriyaan u qabtay inay heshiis ku gaaraan heshiis ku saxiixdo iiraan haddaba marka hadday saxiixi weyso maxaa dhacaya waa burburinayaa uu yiri waxa la yiraahdo bunya taxtiya la yiraahdo af carbeedka waxa waaye kaabayaasha dhaqaalaha ee wadanku leeyahay kaabayaasha dhaqaalaha wax kasta soo hoosgalay ceelasha shidaalka warshadaha buundooyinka meelaha korontada waxaasoo dhan waa burburinaa uu yiri ma maqlaysaan marka warkaasuu caawa soo saaray haddaba aan idin tuso telefishinka alcarabiya oo goordhow warbixin ka qoray sheekadan wuxuu leeyahay iiraan wuxuu sheegay trump wuxuu ku yidhi iiraan waxaad haysataan 3 maalmood in aad markaa ku saxiixdaan heshiis haddii kale waxaanu qarxin doonaa kaabayaashiina dhaqaalaha iyo shidaalka ayaanu burburin doonaa uu yidhi haddaba warbixintu way sii socotay waxaa leeyahay madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa maanta axada waxa uu hanjabay iiraan isagoo leh 3 ayaam ama 3 maalmood ayaad haysataan in aad heshiis ku ogolaataan haddii kale waan burburinaynaa wax kasta oo muhiim idiin ah ee aad haysataan marka sheekadaas iyaduna way soo korortay laakiin ilaa hadda iiraaniyiintu weli wax jawaaba ma ka bixinin laakiin way soo jawaabayaan ayaga mar walba trump markuu hadlo hawadaasaa laysku marinayaa fariimaha marka qodobkaas waa muhiim halkaasaan kaga gudbaynaa sheeko waxaa noo socotay wasiirka arrimaha dibadda iiraan inuu islaamabad tegay ka dhoofay cumaan tegay maanta kusoo laabtay islaamabad wafdi koobanoo qaybta fadhiyiinta la yiraahdo farsamo yaqaano maraykan oo meesha jooga inay arkaan ay rabeen waatuu ma idin arki kara yiri maanta markuu soo laabtay meel saldhigu ku soo degay kadib hoteela loo qaaday bakistaaniyiintii iyo fariimaha iyo sida ay wada hadal ku gali karaan iiraan u dhiibay nimankii maraykanka weli way sugayaan cidaan la kulmay malooy haddeer warka soo dhacay muxuu leeyahay wuu ka dhoofay islaamabad bakistaaniyiinta kaliya oo arkay kadibna wuxuu u dhoofay dhankaas iyo moscow magaalada moscow ayuu u dhoofay haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan ayaa caawa sheegtay caraaqji inuu ka dhoofay bakistan isagoo kusii jeeda waddanka ruushka si uu u sii wado wadahadallada uu la leeyahay madaxda caalamka qaarkeed marka
goordhow iyana aqalka Kremlin ama looga taliyo Ruushka ayaa war soo saaray waxay yiraahdeen berito oo isniina madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin wuxuu la kulmi doonaa wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Abbas Araghchi marka waxa laga wada hadli doonaa bal xiisadan iyo sidii loo dejin lahaa iyo waxa kan ayaa laga wada hadlayaa la leeyahay marka hawshu halkaas ay maraysaa warar kale oo dhanka Pakistan laga helayna waxay leeyihiin waxa laga yaabaa in wada hadallo ka furmaan Pakistan Mareykankuna wafdi soo diraan Araghchina uu soo laabto wada hadalladii in la gudaga marka wararkaas iyaguna wararka cusub ee soo kordhay ayay ka mid yihiin warka kale ee cusub wuxuu yahay Hezbollah iyo Israa'iil way iskaraacayaan saacadii ugu dambeeyay Hezbollah waxay noo sheegeen warkankii Korea ay ku soo qaadanay in saldhig ciidanka ee Israa'iil ay leeyihiin ay droneska isqarxinaya ku qarxiyeen barnaamijkii Korea labaad ayaan ku soo qaadan Israa'iil marka hadday leedahay hal askariya naga dhintay 6 kalena way naga dhaawacmeen markii koonfurta Lubnaan weerar Hezbollah ay ku dhaawacmeen marka Hezbollah maxay yiraahdeen meel dhan ay ka buuxeen dukum daakum ka dhignay dhehen ayaguna maxay dhahayaan hal qof aa dhintay leeyahay xisaabtoodu intaas la waayay marka arintu soo wararkii ugu dambeeyay ciidanka Israa'iil ayaa caaw war soo saaray waxay sheegeen mid kamid ah ciidamadooda in uu dhintay 6 kalena ay markaa ku dhaawacmeen dagaalo ka dhacay yiraahdeen koonfurta Lubnaan oo ay isaga yimaadeen ciidamadooda iyo dagaalyahan ka tirsan Hezbollah marka meesha iyaduna way ka socotaayo hawshaas halkaas iyaduna waa la isgaraacayaa warka kale kamida wararka waaweyn ee soo dhacay caawa waxa qoraysa jiradda la yiraahdo Ra'yul Yawm hadaba markaan tusoo jiraddu waxay leedahay warbaahinta cibriga ama warbaahinta Yahuuda ayaa caawa ka hadlaysa Qaahira inay xoojisay difaaciyadeeda hawada ee yaala gobolka la yiraahdo Sinaa dhanka kalena waxay siisay dawladda ka tirsan khaliijka hanaanka difaaca hawada ee la yiraahdo Amun kaasoo la sheegay in markaa uu kaalin ka qaadan doono difaaca dalalka Carabta Amuno maxaa tahay Masar miyaa hub samaysata su'aalo badan ayaa jira moogtahay Masar ma ayada samaysata ma farsamo kala ku jira marka waxa leeyahay inta badan masaaridu waxay isticmaalaan hubka Ruushka iyo hubka Shiinaha hadday tahay difaaca cirka waxa dhan meelaas ka keensadaan hadday tahay diyaaradaha dagaalka waxa soo dhan meelaas ka soo jacbursadaan waxay soo kale isticmaalaan hubka Faransiiska Mareykanka hubkiisa qaar kamida marka waxa soo dhan isku keensadaan marka waxay leeyihiin maadaama walaalaheen Carbeed ee khaliijka ay nafta hayso oo mar walba Iran hadii la weeraro Iran ay jugta ka geliso una hanjabayso maalin walba wixii bal annaguna aan haynaan idin keenaynaayo bal hadday wax idin tarayaan iska difaaca marka waxay leeyihiin hawshaas iyaduna jirta warbaahinta cibriga ama warbaahinta Yahuuda ayaa caawa ka hadlaysa la leeyahay waayahay qaybihii inta aynu ku joojinaynaa qadar xayisiisa kadib ayaynu u gudbaynaa kadibna waxaan idin soo koobi doonaa wararka soo kordha ku soo dhawaada qaybihii ugu dambeeyay ee wararka aynu ku soo qaadanayno wixii soo kordhay haddaba warar cusub oo soo kordhay ayaa waxay sheegayaan wasiirka arrimaha dibadda ahna ra'iisul wasaaraha waddanka Qatar ayaa telefoonka isna kula hadlay Abbas Araghchi intii uu joogay Islamabad waxay ka wada hadleen bal sidii wada xaajoodka loo sii wadi lahaa dagaalka iyo dhibaatada aan loo horseedin gobolka waxa ka horeeyay saan horadii kugu sheegay wasiirka arrimaha dibadda Masar midka Sacuudiga midka Turkiga midka Faransiiska wixii oo dhan waxay wada wacayaan Iran waxay leeyihiin war arinta qaboojiye haddana dagaalkii aanan mar kale ku laabanin wada hadallada meel dhaxal isugu yimaado hal wada xaajooday leeyihiin
marka wararkaasu iyaguna waxay dowladahaas iyaguna dhiirigelinayaan wadaxaajoodka inuu sii socdo oo markaa wadahadalladu ay markaa hawsheedu socoto. haddaba barnaamijka iyo caawa waa naga intaa, qodobadaas ayaa soo kordhay tan iyo intaynu kala maqnayn. like gareeya oo share gareeya barnaamijka, haddaad cusub tahayna subscribe-ka ka iloobin, youtube-ka, facebook-gana follow garay. inta aan mar kale barnaamijkan lamida ku kulmayno haddii alla idmo, sidaas iyo